بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن ونكسن داوديال صاحبيال halkan waa nuxurka wararka hadii aad ku cusub tahay nagu biiro kamid noqo daawadayaasha saaxiibada iyo asxaabta inagu xiran waxyaabaha daawad doontid barnaamij wareedkan aan idinku soo gudbin doono waxa kamid noqon doona Fahad Yaasin Xaaji Daahir agaasimihii hore Niza oo cadeeyay in la dilay Grand Tahliil Faarax waxaan idin soo gudbin doonaa Fahad Yaasin oo eedeentiisa xafiisyo iyo xubno waaweyn dusha ka saaray inay dileen haweeneydaas ama gabadhaasi waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacdo arrimaha la xiriira oo barnaamij wareedkan ku falanqeyn doono kuna faaqidi doono waxyaabaha kale ee aad barnaamij wareedkan idinku soo gudbin doono daawadayaal saaxiibayaal waxa kamid noqon doona oo ku falanqeyn doonaa hadduu la weynaraali ka noqdo Cabdi Xaashi Cabdilaahi waxa uu ka yimid in la bedelo xeeroosaadka aqalka sare waxaan idin soo gudbin doonaa Cabdi Xaashi go'aankaasi ku diiday bedelaadda yaa soo saaray maxaa laga hadlayaa shirka golaha wada tashiga qaranka ee ka furmay Muqdisho xogo warbixin iyo faahfaahin ayaan idinka siin doonaa qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan falanqeyn faaqad ku sameyn doonaa anagoo dul istaagi doonaa eedeenta iyo bidhaaminta kiiska Grand Tahliil Faarax ee Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo galay xafiisyada ugu sareeya dalka qodobada iyo kuwa kale ayaa daabad doontaan halkani waa nuxurka wararka ee soo dhawaada kamid noqdo ku biira la garaya shirgaraya raadina waxay idin la tahay kaga dhiibta daawadayaal saaxiibayaal aynu ku bilowna hadaba Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa markii ugu horeysay ka hadlay cadeeyayna in la dilay Grand Tahliil Faarax Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa sheegay in aqalay adduun kiiska dilka Grand Tahliil Faarax la weydiinayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble Ra'iisul Wasaare xilgaarsiinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaala wasiir ku xigeenka warfaafinta iyo Mahad Maxamed Salaad oo xildhibaan hore iyo taliyaha iminka ee hay'adda nabad sugidda ah Igraan xilligaasi waxay raadinaysay shaqo xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa shaqo ka doonatay habeenkii la waayay waxa gaari u soo diray Al-Cadaala oo uu geeyay Mahad Salaad ayuu ku bilaabay kiiska isagoo aan ka leexan sheegista magacyo saddexdan mas'uul ee haatan ka mid ah dawladda cusub ayuu ku eedeeyay inay lahaayeen farsamada fududeynta iyo fulinta qaarijinta sargaalad ka tirsaneed Niza Grand Tahliil Faarax ma soo bandhigin cadeymo xoojinaya hadalkiisa Mahad Maxamed Salaad ayaa gaari ku qaaday ayuu yiri oo geeyay xaafadda Daarusalaam oo ay degan yihiin dadka ladan kadib waxa loo gudbiyay jilib halkaas ayaana lagu dilay gacanta fulisana waa al-shabaab ayaa ka mid ahaa hadaladii Fahad Yaasin Xaaji Daahir Mahad Karatay oo ka mid ah ururka al-shabaab ayuu carabka ku adkeeyay inuu kala shaqeeyay fulinta shirqoolkan Mahad Maxamed Salaad hase ahaatee xoogaga gacan saar kale leh al-Qaacida waa iska fogeeyeen eedeyntan kol hore ujeedada laga lahaa waxay ahayd in qalqal lagu abuuro laguna sumcad xumeeyo magaca sirdoonka qaranka ayuu yiri Fahad Yaasin Xaaji Daahir Karatay waxay xiriir dhow markaas ay leeyihiin Mahad Salaad oo hadda madax ka ah Niza ayuu si raaciyay hadalkiisa dalal ajaniba ayuu sidoo kale sheegay in ay qayb ka ahaayeen shirqoolkan balse Fahad uu ka gaabsaday inuu carabaabo mar la weydiiyay inay yihiin Imaaraadka Carabta iyo Kenya wuxuu ku jawaabay aniga ma sheegin magacyadaasi ee adiga ayaa sheegay ayuu ku celiyay wariyihii wareysanayay waxa uu sidoo kale markaasi sheegay xogta aan haatan sheegayo waa 10% macluumaadka aan ka hayo kiiskan inta kale ee ka hartay waxaan la wadaagi doonaa hay'adaha sharciga ah ayuu hoosta ka xariiqay Fahad Yaasin oo gacanta midig ee farmaajo ahaa mucaaradka Soomaaliya ee haatan la wareegay talada dalka ayaa horey u sheegay in hay'adda sirdoonka qaranka oo uu hogaaminayo Fahad Yaasin ay ka dambeeyeen dilka Grand Tahliil oo ahayd madaxa amniga internetka hay'adda marka laga yimaado xarig jiidka siyaasiyiinta ilaa haatan ma jirto cid si madax banaan u xaqiijinaysa sheegashooyinka labada dhinac qoyska gabadha maqan oo ah dhibanaha ugu xooggan kiiskan ayaa u bororanaya cadaalad inay u helaan gabadhooda haddii ay nooshahay loo helo inkastoo iminka sida muuqata
aad loo sheegayo in la dilay sida taliyihii nisa iminkaba uu horey u caddeeyey waa taliyihii hore uu caddeeyey in gabadhaasi xubno uu sheegay ay dileen. si kastoo ay xaaladda noqoto, dhacdadan ayaa markaasi noqonaysa bamba siyaasadeed oo Fahad Yaasiin uu soo tuuray, sax ahaanshiyaha iyo been ahaanshiyaha labaduba midkii ay doonto ha ahaatee. La taliyihii hore ee amniga qaranka ayaa sheegay carabkana ku adkeeyey dadkii dilay Ikraan Tahliil Faarax inay ahaayeen agaasimaha Nisa Mahad Maxamed Salaad, wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Al Cadaala, iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. gabadhaasi gaari ayaa lagu qaaday, nin xildhibaan ah oo la yiraahdo Mahad Salaad baa lala kulansiiyey, isagaa gaari ku qaaday, gaarigaa baa laga qaaday, waxaa la geeyey Daarusalaam xaafad la yiraahdo oo xamar ku taalla oo dadka magaalada ugu ladan ay degan yihiin. gurigaasi ayaa laga qaaday, waxaa la marsiiyey Shabeellaha Hoose, meel jilib u dhow ayaa la geeyey, halkaas ayaana lagu dilay, ayuu Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu ku yiri wareysiga. sidoo kale nin la yiraahdo Mahad Karatay oo madaxda Al-Shabaab ka mid ah ayaa howlgalka fuliyey oo xiriir dhow la leeyihiin Mahad Maxamed Salaad. ra'iisul wasaaruhuna wuu ka warqabay dhibaatadaasi in loo geysanayo aakhiro qofka gabadhaasi la weydiinayo waa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. farsamada lagu fuliyena Al Cadaala ayaa iska lahaa, gacanta fulisana waa Mahad Salaad, ciddii dashayna waa Al-Shabaab ayaa ahaa hadalkii israacay ee Fahad ka soo baxay. Fahad ma shaacin sidoo kale dalalka qaybta ka ahaa kiiskaasi oo isagu markaasi uu sheegay in qorshayaasheedii la marsiiyey. waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay in kiiskaas daraadiis uu isaga halis badan u galay, isla markaana lagu celiyey waddanka Jabuuti, loo diiday in Soomaaliya uu soo galo xilligaasi oo kiisku u dhacayay oo dalka dibadda uu kaga maqnaa. waxa uu xilligaasi uu doonayay sida uu sheegay inuu kiiska Ikraan Tahliil horgeeyo madaxda golaha wadatashiga qaranka, maadaama uu markaasi doonayo inuu caddeeyo. taasina waxa uu markaasi sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu diiday, sidoo kalena laga hor istaagay wasiirkii cadaaladda, amniga iyo gaashaandhigga. hadalkan ka soo yeeray Fahad Yaasiin ayaa ku soo beegmaya iyadoo horey mas'uuliyiinta uu hadda eedda u jeediyey qudhoodu ay kiiska Ikraan Tahliil dhabarka u saariyeen isaga iyo hay-addii uu ka arriminaya ee Nisa. halkani waa nuxurka wararka daawade, fadlan legaray sidoo kalena shirgaray adigoo la wadaagaya saaxiibadaada, kuna soo biira adigoo subscribe saaraya sidoo kalena la wadaagaya saaxiibadaada. Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa ka hor yimid in la bedelo xeeroosaadka aqalka sare. gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaashi Cabdilaahi oo khudbad ka jeediyey kulan maanta ay yeesheen golaha ayuu kaga hadlay arrimo ku aadan muran ka taagan xeeroosaadka golaha aqalka sare. gudoomiyaha Cabdi Xaashi ayaa si weyn uga hor yimid in la bedelo xeeroosaadka oo uu aqalka sare ku soo shaqeynaya 4 sano la soo dhaafay, waxaana uu tilmaamay in haddii wax laga bedelayo inay noqonayso dib u noqosho hor leh sidoo hadal ku dhigay. hadda inaynu niraahno xeeroosaadka cusub ayay shaqadii ka bilaabanaynaa, aniga ilama hagaagsana, waa dib u noqosho. waxa weeye 4 sano ayuu aqalkan ku soo shaqeynayay xeeroosaadkaasi, ayuu gudoomiyuhu yiri. haddii ay noqonayso qodobada aan isleenahay wax laga bedelo, waxa weeye marka aynu markaasi howlihiisa galno ayaanu ku bedelaynaa wixii jira. ma qabo inaad tiraahdaan xubno badan baa cusub, sidaas daraaddeed habdhowrihii ayaa magacaabista maanta ma ogolin inuu socdo. aniga erey fiican ilama aha, waa dib u noqosho. taasi xeeroosaadku waa saxaynaa wixii sixitaan u baahan, ayuu yidhi Cabdi Xaashi Cabdilaahi oo isagu arrimahaasi ka hadlay ama falanqeeyey, sidoo kalena diiday in xeeroosaadka wax laga bedelo. shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa Muqdisho ka furmay. haddaba maxaa laga hadlayaa? magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirka golaha wadatashiga qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah. shirkan oo ka qayb galayaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Rooble, madax goboleedyada shanta ah, iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir. shir gudoomiyuhu uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda. war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu baabahiyey waxyaabaha looga hadlayo. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyey shirka golaha wadatashiga qaranka ee dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta ka furmay madaxtooyada qaranka, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay madaxtooyada. shirkan oo muddo 2 maalmood ah socon doona ayaa ku qotoma siyaasadda madaxweynaha ee lagu gaarayo Soomaali heshiisa, waxaana diiradda lagu saarayaa qorshayaasha hortebinta leh ama u leh dowladda
oo ay ugu horeeyaan qorshayaashaasi oo hortobinta u leh dowladda oo ay ugu horeyso xoojinta wada shaqeynta heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo dib u heshiisiinta. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa shirkan ku faaqidi doonaan dhamaystirka dastuurka, xoojinta nidaamka federaalka, adkeynta amniga dalka, dhisidda garsoor sal adag leh, xal u helidda arrimaha abaaraha iyo diyaarinta hannaanka doorashooyinka dalka. Shirkan waxaa ka qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah Roble, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Xasan Maxamed, Puntland Saciid Cabdulaahi Deni, Galmudug Axmed Cabdi Kaariye, Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen, Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Halkani waa nuxurka wararka. Daawadayaal saaxiibayaal nagu biira ka mid noqda leegareeya shargareeya aaraahdiina waxay idinla tahay ka dhiibta daawadayaashii saaxiibada sida tooska noola socdo. Waxaan idin dhaafnaa sida iyo amaana Allah daawadayaal saaxiibayaal.